waxaa magaalada Toronto ee dalkani Canada caawa ka socda xaflad lagu taageerayo maamul goboleedka la yiraahdo Khatuma State of Somalia oo dhawaantan lagaga dhawaaqay magaalada Taleex ee ku taala dalka Soomaaliya oo isla markaana magaalo taariikhi u ah dalka Soomaaliya taasoo ah maamulkan dabaaldegiisa caawa waxa soo abaabulay dadweyne Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Toronto ee dalkani Canada sidaad aragtaan waxa ka soo qayb galay fanaaniin waaweyn iyadoo halkaan waliba ay hadalla ka jeediyeen mas'uuliyiin sare isla markaana ka abtirsada maamulka la yiraahdo Khatuma State waxa ay isaga kala yimaadeen dalka Mareykanka wadamada Carabta ee midowga Yurub iyadoo hoolkan aad caawa aragtaan oo ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo 500 oo qofood waxa isla sidoo kale halkan lagu dabaaldegay habeenkan caawa maamulka Khatuma State isla markaana fanaaniintii Soomaaliyeed ee qarandoon ee ka dhisan magaalada Toronto ee dalkani Canada oo aad aragtaan maamadi fanka maamadalaysa Nakruma iyo Marbanka iyo fanaankeenna boqol ee reer Toronto sidoo kale waxa halkaan ka hadlay xildhibaan Soomaaliyeed ee ka socday dawladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya soo aragtidiisa ugu muujiyo sidoo arka maamulka Khatuma State habeenkan caawa waxa ka hadlay xafladan qiimaha iyo qaayaha dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan aad ugu faraxsanahay in la gaaray guushii aynu sugaynay in ka badan 100 sanadood anigoo ah Axmed Maxamed oo ka soo jeeda beesha waxa ii suura gashay inaan yeesho maamul haga ummadda Soomaaliyeedna u iftiimiya maanta dibka haysata maadaama aanu ka maqneen muddo 22 sanadooda aanu ka maqneen maamul aan dhismaha dawladeenu waa sahaliin sidaa darteed waxa habboon inaan xusno dadkii u soo halgamay kuusha u soo hoyay reer Khaatumo waxaan u bogaadinayaa qurba joogta u ololeysay midnimada qadiyadda iyo madax banaanida dadka reer Khaatumo ama sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo calanka iyo madax banaanida ay ugu soo dhinteen oo daraawiish ay caan ugu tahay taariikhda ummadda Soomaaliyeed ayaan waxaan leenahay haddana isu keenida ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed state-ka Khaatumo waa laga sugayaa inuu qaybtiisa ka qaato inta kadib waxaan jeclahay inaan idin soo gaarsiiyo salaan aan idinkaga sido madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed Sheekh Shariif Sheekh Axmed Prime Ministerka dawladda Soomaaliyeed Mudane Cabdiweli iyo xukuumaddiisa baarlamaanka iyo shacbiga Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho marka aad iyo aad ayaa ididiilo anigu aan u soo arkay dadkii aan Taleex kaga imi dad aad moodo barigii 60kii sidii la ahaan jiray barigii xorriyadda la doonayay ayaa moodaa inay dadka ka muuqato halkan iminka xafladana waa ka muuqataa waxa anigu iminka aad iyo aad aan ugu jibooday markii iminka la qaadayay national anthem-ka waayo anigu garan maayo waqtigii ugu dambeysay live inaan u dhageysto national anthem-ko la qaaday ee lagu taageerayo Khatuma State of Somalia jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto iyo nawaaxigeeda jaaliyadda Khatuma State ee caawa ayagu isugu wada yimid madasha qaabka loo dhisay ayaad ka garan kartaa Khatuma State inay ka dambayso maskax waafiya oo aad u sareyso walaalayaal wax kastoo bilow waxay u baahan yihiin taageero wax kastoo la dhisayana waxay u baahan yihiin taageero qurba joogteena Soomaaliyeed ee Canada waxa laynooga baahan yahay taageerada Khatuma State inaynu u istaagno walaalaheen oo aynu garab istaagno oo aynu taageerno oo hiil iyo hoow wixii laynooga baahan yahay aynu gacan weyn ku siino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
iscaawiya codkaagu awood hela cisigu kugu meel noqda daruuruhu ay ku cubtaa markii la iscaawiya codkaagu awood hela cisigu kugu meel noqda daruuruhu ay ku cubtaa haddeerta waxaan u yeedhayaa nawaal maxamed xaaji cabdi السلام عليكم kalgacalka iyo jacaylka guriga hooyo inaan joogaan isku maleeyaa maasha allah alxamdulilah allahu akbar caawa waxaan ku hadlayaa afka nadiifa faarax cusmaan iyo hooyaday macaan آمنة محمد ديريوس بان أقول فرح سنة هاي tonight I am filled with emotions قروح ذا شعنيقة قيمها قايها كم مغضى صومالي محمد aniga waxaa la yiraahdaa nawaal maxamed xaaji cabdi oo badanaa dadkii Soomaali maxamed inta xigtada ii ahayd baa caawa meeshan isoo wada timi First of all waxaan rabaa inaan u mahadnaqo habriyooyinkay iyo abtiyaday Africa ay geliyeen eventigan ee Soomaali isugu keeneen hooyaday magacayga Nawaal markay ii bixisay waxay tiri growing up I was a very open-minded child waxay tiri waabad nawaashay laakiin caawa waxaan rabaa inaan darwiisha magacayga u gudbo midnimada Soomaaliyeed waa muqaddas darwiisha caawa waxay jeclaan lahayd inay Soomaali weyn on behalf of reer Toronto ay tiraahdo welcome Qaatumo insha Allah ta'ala Qaatumo waxay noqon doontaa nabadda isu keenka wanaaga diinta quruxda Soomaali lagu qatimi doono insha Allah anigu waxaan doonayaa caaw inaan idin sheego waxaan ahay hooyaday waxay tahay waxaan aaminsanahay waxay aaminsan tahay waxaan jeclahay waxay jeceshahay
waxaan support gareeyaa waxay support gareyso waxaan ka soo jeedaa waxay ka soo jeedo waxaan anigu ku dhaqmayaa supportkayga iyo love-kayga inaan tuso because waxay tuseen Soomaali Maxamed in a unity initiative ee u qaataan ee Soomaali ka mid noqdaan ee calankan aad u jeedin ay ka mid noqdaan and the reason why I stand here tonight is because I support and love the unity of Somalinimada. Aad baan u jeclahay Somalinimada. A lot of people misunderstand mowqifkayga wuxuu u yahay. Couple of days ago waxaan rabaa sheekeerna idin sheego. Couple of days ago Will and friends naha wuxuu igu yiri my waad ku jirtay Mareeg waad ku jirtaa Puntland waad ku jirtaa Barawaaniinta waad ku jirtaa Daraawiishta waad ku jirtaa walaali aad maxaa meel kasta ku galiyay oo waxaana ilaa hadda waxaad tirisa hal wax lee waay waa Soomaali marka I want to clarify myself meel kasta oo calankan xidigta dhexda uga yaalo waan ku jiraa soo su'aalahaas dadkii ii soo waday oo dhan waxaan idin sheegay I guess in advance baan idinka jawaabay waxaan rabaa inaan u mahadnaqo habaryartay Nasra Khaliif Baadiye qaatume intay xambaartay dhabarka saaratay She's an amazing woman. She's a lovely woman, well respected Somaliyat, a true Somaliyat, and I love her dearly. I love you, Habar Nasra Maan. Habaryarahay kaleeto guryahooda bay iyagaba ka raageen ayaamahan way daaleen abtiyo sidoo kaleeto abtiyaashay iyaga xataa way dadaaleen marka waxaan rabaa waxaa muujiseen wax aan laga hadli karin habaryartay hogaamisa Saada Cali Warsame waxay tiri muujiya dhulduragay tiri muujiya cirdurag waa muujiseen idinka oo Soomaali oo dhan gacmaha haysan I'm very proud of Qaatumo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hal midaan idinka ilaaway waxaa la yiri abtiyada ducadooda way kacdaa abtiyada hay duceeyaan
هيبت وحد كل ذهي هات الكاغاهيو هيبت وحد كل ذهي الكاغاهيو ولا ما هراني أكرني وحقوقه ولا ما هراني أكرني وحقوقه هيبت وحد كل ذهي الكاغاهيو هيبت وحد كل ذهي الكاغاهيو ولا ما هراني أكرني وحقوقه ولا ما هراني أكرني وحقوقه هوي لقى أوراني هانتي معاك وعميرك هوي لقى أوراني هانتي معاك وعميرك هوي لقى أوراني هانتي معاك وعميرك هوي لقى أوراني
ومهد عرب وعلي بكر ودين كنا في أمانة الله مقالة تورنتو كندا